markay uurka leedahay saad ka soo dhawaajisay waxay u baahan tahay fitamiino fara badan inay qaadato ama nafaqooyin fara badan. waxaa jira cunooyinka dabiiciga caadiga ah ama daily la isticmaalo hooyada uur kale ay qaadan karto iyo cunooyinka aysan qaadan karin naftirkooda maxaad nooga sheegi kartaa? cunooyinka hooyada markay uurka leedahay ay qaadan karto waxaa ka mid ah cuntooyinka dheelitiran wal balanced diet-ka waa 5 groups aan soo sheegay kulli waa laga wada helayaa. waxaa ka mid ah waa carbohydrate-ka, proteins-ka, fats-ka, minerals-ka iyo water-ka. waa inta waxaa loogu baahan yahay inay isku dheelitirato, yani midba nooc ay ka qaadato, aysan u qaadanin hal wax inta badan. markaan leeyahay carbohydrates-ka waxay ka heli kartaa ceeshkii, waxay ka heli kartaa bariiska, baastada, waxay ka heli kartaa maxay heeto whole grains-ka, waxyaabahan yani inta badan nolol kala isticmaala iyo proteinka waxay ka heli kartaa ukunta, ka heli kartaa caanaha, ka heli kartaa yogurt-ka, ka heli kartaa cheese-ka, ka heli kartaa farmaajada saan u naqaano. sidoo kale vitamins-ka waxay ka heli kartaa fresh fruits-ka iyo muxuu ahaa fresh fruits-ka, minerals-ka sidoo kale ayakana waxaa laga heli karaa fresh fruits-ka laga helayaa labadoodaba. iyo biyihii inay qaadataa ugu yaraan maalinkii 6 glass ilaa iyo 10 glass oo biyo ah, oo biyaha caadiga ah, biyaha caadi oo plenty of water ah. waxaana ku jira fluoride kaasoo ka ilaalinayo bleeding-ka ku imaan lahaa hadhowtoole ayadan ka joojinaya. waa biyaha ay isticmaalaysan waa biyaha muisaxada ah, aan ahayn biyaha taangeeda ku jira, biyaha caadiga tubooyinka la isticmaalo. tan biyaha wasaqaysan inay qaadato hooyada biyo nadiif ah, biyo nadiif ah inay qaadato inta way qaadan kartaa. cunooyinka aan hooyada ku habooneen inaysan qaadin markay uurka leedahay waxaa ka mid ah kafeeyinka camal. kafeeyinka yani waxaa ku jiro sida shaaha waa laga helaa, qaxwada waa laga helaa, sidoo kale waxaa laga helaa chocolate-ka laga helaa, chips-ka, wax dhan waa laga helaa. bas waxaa loo baahan yahay hadday xitaa ayada iska joojin karin in ay wax yar ay ka qaadato, nisba yar ay ka isticmaasho aan badnayn. maadaama maalinka haddii qaadan jirtay 3 koob ama shaax ama 4 inay ka dhigato 2 ama 1 haddaysan joojin karin.